dalka ka qabsoontay 2017 xisbiga UCID waxa uu soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu qaado tallaabooyin ficil ah oo arrinta wax kaga qabanayo koow waxa ka ah inuu muujiyo cadaaladii dalka si hadal ugama baahneen ficil inuu ku muujiyo inuu cadaalad u sameeyo shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka labaad inuu dhageysto tabashada shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee maalin walba ka baxaya TV-yada qodobka labaad doorashada xisbiga UCID shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo beesha caalamkuba waxay warwar weyn ka qabaan dib u dhac ku yimaada doorashooyinka golayaasha wakiilada oo u xusul duuban muddo korsiimo shanaad iyo golayaasha deegaanka oo iyaguna diyaar u ah in loo kordhiyo markii labaad waxa muddooyinkii u dambeeyay dhaqan iyo caado dhaxal ah ina bareen dawladihii kulmiye ee kala dambeeyay dib u dhac macnaha ka dambeeya yahay kursi jacayl kaasoo ay ugu horeeyaan golaha wakiiladu ee la doortay 2005 iyadoo hore loogu kordhiyay 4 jeer wax kalsooni ay ku fadhiyaan aanay jirin iyadoo muddo xileedkoodu yahay 5 sano oo ka bilaabanta maalinta la dhaariyo sida ku cad qodobka 8 farqadiisa 24aad dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland balse aan la fulinin waajibaadka qodobkan dastuuriga iyadoo aanay jirin inta badan duruufo wax lagu kordhin karo oo waafaqsan qodobka 24aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland balse dib u dhaca doorashooyinka ku yimaada mas'uuliyad darro ka timaada xukuumadda iyo golayaasha sharci dejinta ayay ku yimaadaan oo imikana ay ognahay inay bilaabeen xudxudasho muddo kordhin shanaad sababtoo ah xeerkii lagu dooranayay golayaasha wakiilada waxa uu hor yaallaa waxa uu xagga hore kaga jiray ajandihii golaha wakiiladu markay fasaxa ka soo noqdeen ay ansixiyeen haddana waxaynu ognahay inay hoosta dhigeen oo ay doonayaan wiigan soo socda inay fasax galaan dib u xusid madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin 2005 markii ay golaha wakiiladu loo sameeyay muddo kordhin aan sharciga waafaqsanayn madaxweynuhu wuxuu qaatay tallaabo dastuuriya waxaan uu gudbiyay maxkamadda sare xeerkii maxkamadduna waa tii go'aan ka soo saartay haddaba madaxweynaha waxa looga baahan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa looga baahan yahay inuu xarliyo arrinta guddida doorashooyinka go'aan geesinimada ka qaato waxa kale looga baahan yahay saami qaybsiga guraasta golaha wakiilada taasoo suurto gelinaysa qabsoomida doorashada inuu iyadana go'aan ka qaato inuu madaxweynuhu la jaan qaado isbedelada mandaqada geeska ka socda inuu madaxweynuhu shacbiga horkacay iyo dadka jamhuuriyadda Soomaaliland una hogaamiyo nidaam dawladnimo si dalkan uu gaaro himilada uu higsanayo xisbiga UCID wuxuu ugu baaqayaa golaha wakiilada inay ansixiyaan xeerka hor yaalla intaanay fasaxa gelin inay ansixiyaan buu ugu baaqayaa sidoo kale xisbiga UCID wuxuu ugu baaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda uu hogaamiyaba madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumadda ay hogaamiyaanba xisbiga UCID wuxuu ugu baaqayaa koow in mas'uuliyadda doorashada xilkeedu uu saaran yahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka
sabab la'aan wax cudurdaar oo ay inoo sheegi karaan ma jiraan iyagaa laga rabaa qodobka labaad madaxweynuhu inuu ka guto waajibaadkiisa dastuuriga golaha wakiilada haddii ay fasax ku galaan iyagoo aan ansixin xeerkan imika hor yaalla iyagoo aan ansixin waxaa laga rabaa tallaabadii geesinimada lahayd ee uu madaxweyne daahir riyaale kaahin qaatay inuu qaato oo maxkamadda dastuuriga u gudbiyo si ay doorashadu u qabsanto waxaa kaloo madaxweynaha u bannaan inuu kala diro golaha wakiilada go'aanka xisbiga ucid waxaanu beesha caalamka iyo shacbiga jamhuuriyadda somalilan u sheegaynaa go'aanka xisbiga ucid kow xisbiga ucid uma aqoonsanaan doono golaha wakiilada matalayaal ama wakiilo shacbiga jamhuuriyadda somalilan soo doorteen uma aqoonsan doono maalinta wakhtigeeda la gaadho wakhtigaa loo kordhiyey maalinta la gaadho xisbiga ucid uma aqoonsano golaha wakiilada inay yihiin wakiiladii shacbiga soo doorteen haddii ay timaaddo muddo kordhin shanaad waxa uu madaxweynuhu gacantiisa ku burburiyey shacbigii kala dambayntii iyo dastuurkii qaranka jamhuuriyadda somalilan haddii ay timaaddo taasina xisbiga ucid aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa intaa war saxaafadeedka intaasu ku kooban yahay yuusuf kayse hal su'aal baa doonaya inaan ku weydiiyo waxaad tilmaamteen in madaxweynuhu si cad u muujiyo cadaalad darrada xisbiga wadani iyo mas-uuliyiinta kale oo qaarkood siyaasiyiin waan yihiin waxay soo jeedinayaan in cadaalad darra ay dalka ka jirto idinku ka xisbi ahaan markaa sidaa leedihiin ma waxaad leedihiin cadaalad darrada xisbiyada qaar soo jeediyeen way jirtaa oo madaxweynaha waxaa leenahay wax ka qabo waxa weeye waxa muraayadaheenna iyo miidiyaha ka baxaya 24 saacadood bashaashadaha imika wadataan waxa u gudbisaan madaxweynaha tabashooyin ay shacbiga Soomaaliland u gudbinayaan madaxweynuhu ilaa maanta uu ka aamusan yahay aamusnaantaasina waxay jaanis siinaysaa cadawga jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu inuu ka aamuso maahay waa inuu tallaabo ficil ah hadal uma baahan 27 sanadood buu hadal in la wareeriyay waxaan u baahannahay tallaabo ficil ah inuu madaxweynuhu wax kaga qabto yuusuf kayse dhawaan shir ay qabteen hay'adda ka hortagga aafooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinku waxay sheegeen way ku soo bandhigeen warbixin dheer oo ka warramaysa khasaarihii ay geysatay duufaantii isaga waxay